أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دروستين ayaa isugu soo noqonay maanta waxaan ka hadlayaa xanuunka infectioniska qayb kamid oo dumarka ku dhaca xanuunkaas oo la dhaho bacterial vaginosis oo dadku aad ugu dhibaataysan yahay wuxuu ku dhacaa xubnaha taranka ayuu ku dhacaa gaar ahaan dumarkana ku dhaca xoogiisa ragga saas way keenaan iyagu laakiin badi ma qabaan ragga wuxuuna ku dhici karaa da' kasta wuxuuna u badan yahay xilliga dumarku ay dhalmada ku jiraan siyaalo fara badan baa jirto uu imaan karo qofku markuu daciifo oo kale uu imaan karaa xanuunkan waxaa keena bacteria la dhahayo Gardnerella vaginalis ayaa keena xubnaha tarankoona ku dhaca gaar ahaan alaabta dumarka xanuunkan wuxuu leeyahay dhib badan buu umada ku hayaa dhibkaas oo ah qoyaan baa imaanaya ama grey ah ama light white ah waxaa kaloo imaanaya maxaan ku raahdaa ii sheeg qoyaan urhaya oo sidii malaay camal u uraayo oo gabdho aad ooga cabtaan inoo dhahay aniga qoyaan urhaya iga socdo wuxuu yahay ma aqaano waxay kaloo caan ku tahay kaadida markaad kaadinaysa xanfaf baad dareemaysaa waxaa kaloo dareemaysaa gudaha alaabta in ay leedahay xanfaf iyaduna oo aad dareemaysid waxaa kaloo jira wax la dhaho aaria hoosta ka imaanaysa gabadhiisay u joogto aaria bugbug ka soo dhehaysa aaria markay soo baxdo way qaraacmayaa qofkii sababta aaria dabada dhanka kale ka timaada kama timaada inta normal marka waa wax abnormal oo ka imaaday alaabta ka soo baxay aarias ay dad dumarku waxay ka qaadaan walwal iyo walaac oo ku dhahayaan qaarkood aniga meeshaan aaria ka imaatay aaria way dhibaysaa maxay tahay ma dilaac ku wax dhal waxay ku leeyihiin miyaan isu go'ay ma alaabtii dabadii waxa isu go'ay alaabtii see wuxuu jiraan dhibkaas ay haysta aariadaas ayaa dadku dhib badan ku haysa iyo qoyaanka urka ah maxaa keena sababta maxay tahay waxa keena bacteriada keenta bacteriada fiican oo normal flora bacteria fiican bacteria meesha ku nool fiican ayaa hoos u dhacaysa tii xumeed baa badanaysa kadib waxaa sababa acidity alaabta jabaysa markay jabto halkaas oo imbalance wax la imaanay imbalance overgrowth waxa imaanay bacteriada xumaa bacteria fiicneed baa dhumaysa markay dhunto silaata basiilo midka la waa laga tan badanaya halkaas waxa ka bilaabmay qoyaan urahaya sidii malaayga kale waxaan ku raahdaa hawo ka imaanaysa waxaan ku raahdaa hoosta ka imaanaysa bubbles wax camal ah qofkii waxa ku dhahay walwal iyo walaac maxay tahay daawadiisu waxa waaye markii gabadha isku aragto inay dhakhtar tagto ugu sokeeya dhakhtarkaas daawo siina way ku ladnaaysaa ma ahan gabadha la qabo kaligeed in la daaweeyo waa in nin kale la daaweeyaa laakiin kaligeed haddii la daaweeyo sida ahaanba infectionska dhan sharcigu waxa waaye ninka iyo naagta kii soo hormara ka kale in loo yeero oo laga daaweeyo laakiin dhibtan haysto haddaan dumarnahay waxaa waaye nimankii Soomaalida ma ogola in isdaaweeyaan sababta keenaysana waxaa waaye calaamad ma leh iyagii waxay ma dareemayaan meesha dumarku infectionka ay aad u dareemaan raggu ma dareema waa kaariyar aniga xanuun imahayuu ku leeyahay maxaa dawo u qaadanaya laakiin taas waxay keenaysaa aqoon la'aan marka waxaan ka codsan lahayn ragga Soomaalida aan la kulana markasta dawada inay la qaataan gabadhii haddii infection laga helo hadday gabadhu isagu noo soo hormaraan waxaan dhahnaa gabadha u yar dawadana dawasii gabadhana daawasii laakiin 99% raggu ma ogola waxay ku calaamad ma laha wax calaamad ma dareemayaan raggu hal calaamad bay dareemaan markii infection ku dhaco calaamadaas qofka markuu ku dhaco xanuun ku lahaay jabtada ama gonorrheada raggu waa dareem waan isdaaweeyaa laakiin inta kale Soomaalidu ma ogola aqoon uma laha wixii aqoon darra haysata sababta qofka duusa calaamad lahayn wuxuu ku leeyahay maxaan qabaa waxaan ma qaba iyada infection qabta iyada jiran iyada kana sheekooyin saas la imaanaya marka bacterial vaginosis waa xanuun fudud haddii aan la daaweyn waxa imaanaya infection fara badan qofku inuu sii qaado xanuuno kale inay meesha yimaadaan secretary sii kale inay yimaadaan oo sii fududeynaya laakiin isagu waa wax fudud oo dawadiisu ay fududahay markii imbalance-ga bacteria fiican iyo xun ay kala bataan buu imaanaya marka maxaa laga rabaa in daawo la qaato dhakhtarka kuugu dhow inaad u tagtid daawadiisu waa fududahay waxaan toddoba beri dhammayn iyo ninkii oo dawadii la qaata laakiin gabadhi kaliya ku imaanaysa aniga qoyaana iga socda urahaya maxaa isku daawe maxaa igu dhacay hawa iga socota meesha waa daaweynaysaa gabadhii ninka waxa kale dawadii waa diiday haddana beriya soo noqonaysa iyadoo wixii qabta oo xanuunsan marka dhibaatooyinkaas jira xanuunkan mana dhibana wax kasta daaway leeyihiin marka ragga waxaan ka codsanaynaa iyo dumarkaba labadooduba hadday dhakhtar tagaan midkoodna inuusan diidinin oo daawada la isla qaato waa wax fudud dhib ma laha bacterial vaginosis xanuun dhib badan ma aha intaasaa maanta idiin sheegahayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu